taliskani waxa uu mas'uul ka yahay ilaalinta aqoonsiyada lagu safro iyo xuduudaha dalka kuwana waa askarta iyo saraakiisha ciidankaasi oo isu diyaarinaya saaka mid ka mid ah shaqo maalmeedkooda caadiga ah balse maanta waxaynu ka hadli doonaa qayb yar oo ka mid ah shaqadooda waana mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ay qabtaan xaruntan maalin walba waxa lagu sameeyaa boqolaal baasaboor oo ay qaataan muwaadiniinta reer Soomaaliland kuwaas oo kala gooshaya daafaha caalamka iyagoo qaata saddexda nooc ee uu ka kooban yahay baasaboorkan baasaboorkan hadda cusub aan sameynay xukuumadda amarkeeda ayaa lagu sameeyay baasaboorkii hore dadku dhibaato ku qabay marka erboodada ay tagaan akhriskiisa dhibahay marka waxay noqotay immigration ahaan inaan talada ula tagno madaxweynaha nalguna saacido inaan dhammayno baasaboorkaas wuxuu taray in markii mashiinadu akhriyi karaan qofka magaciisa wixii looga baahnaa si baasaboorka waxa looga baahan yahay baasaboorka cusub ee Soomaaliland waa baasaboor baasaboorta waa kuwa ugu dambeeyay marka adduunka isticmaalo wadamo yar baa isticmaala oo kooban imika Afrika laga yaabo inuu hal wadan ama laba wadan inuu ka soo gaaray waa new generation passport baa la yiraahdaa waxaana lagu tagaa wadamo badan oo Soomaaliland ka baxsan baa lagu tagaa Ethiopia waa lagu tagaa Djibouti waa lagu tagaa Kenya waa lagu tagaa Tanzania waa lagu tagaa Uganda waa lagu tagaa wadamo badan oo Afrika ee lagu tagaa wadamo badan oo Yurub oo lagu tagaa Mareykanka waliisa oo lagu tagaa arday fara badan baa ku joogta iyo qof kasta oo dan u leh Mareykanka si fudud baa baasaboorka Soomaaliland way ka sukriirsan yahay baasaboor badan oo jira imanka baasaboorka Soomaaliland waxa uu ka soo bilaabmay in lagu qoro gacanta balse hadda waxa uu la jaan qaadayaa nidaamka ugu casrisan ee baasaboorada dunidu ay marayaan baasaboorkan wuxuu soo maray generation far badan buu soo maray mar gacanta lagu buuxinayay baa jirtay mar aan wadan cidiba ku dhoofi jirin baa jirtay baasaboorku iska yaalay dawladdu waxay ka shaqeysayeen baasaboorkan la socodsiiyo wadamo badan oo Soomaaliland saaxiib la laga hirgeliyo Allah u naxariistay madaxweynaha ugu horeeyay Soomaaliland mudane Maxamed Ibrahim Cigaal baa baasaboorka ugu horeeyay sameeyay dawlad kasta oo ka dambeysana way sii hirgelinaysaa baasaboorka kolba waxba laga bedelay marka iminka wuxuu la jaan qaadayaa baasaboorkeenu baasaboorada caalamka aadan Ismaaciil waxay ka mid ahayd 40 muwaadin ee ugu horeeyay ee qaata baasaboorka Soomaaliland waqti laga joogo muddo 22 sano ka hor aadna waxay nooga warantay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray baasaboorka Soomaaliland iyo wadamo tiro badan oo ay ugu safartay baasaboorkii ugu horeeyay ee Soomaaliland waxaan qaatay 2002 waxaan ku tagay ka baasaboorkaas 2002 aan qaatay waxaan ku tagay Mozambique waxaan ku tagay South Africa waxaan ku tagay Ethiopia dhowr jeer kaasi waa iga buuxsamay kii ku xigay waxaan qaatay lambarka baasaboorka ugu horeeyay qaatay wuxuu ahaa 74 waxaan qofkii 74aad ee baasaboor Soomaaliland qaata 46 qof baa iga horeeyay kii labaad wuxuu ahaa lambarkiisu 126 baasaboor baa iga horeeyay waxaan ku tagay Korea waxaan ku tagay Ethiopia dhowr jeer waxaan ku tagay Belgium waxaan ku tagay
maraykan waxaan ku tegay haddana maraykan waxaan ku tegay ingiriiska run ahaantii markii hore umaan haysan baasaboorka Soomaaliland wadamo badan ay ictiraafsan yihiin baasaboorkii ugu horeeyay ee dowladda Soomaaliland ay yeelato waxa uu soo baxay xukuumaddii madaxweyne Cigaal waqtigaasi ma ay fududayn in lagu tago meel walba haddase waxa lagu tagaa shanta qaaradood ee dunida anigu waxaan safar u baxay sanadkii hore 2022 bishiisii October waxaan markaa martiqaad ka helay hay'adda Somali Festival Week qabata waxaan ku tagay baasaboorka Somaliland run ahaantii markii hore umaan haysan baasaboorka Somaliland wadamo badan ay ictiraafsan yihiin intaan Ingiriiska tagin waxaan ku tagay meesha kala raado Addis Ababa run ahaantii Ethiopia run ahaantiina si aanan filaynin ayaana lagu soo dhaweeyay baasaboorka waxaan watay anigu Somaliland waliba kiisa diblomaatiga oo aan aaminsanahay in Ethiopia tahay meelaha ugu fiican ee baasaboorkiina laga ictiraafsan yahay markii labaadna waxaan ku tagay Ingiriiska oo baasaboorka diblomaatiga ee Somaliland marka baasaboorkiina Somaliland waa baasaboor qiimo badan leh dadkeenu ma oga wadamo badanna waa lagu tagaa anigu shakhsiyan waxaan ku safray baasaboorka Somaliland waqtiga waxaan ka tirsanaa shaqaalaha dawladda waliba waxaan ku safray nooca dawladda loo yaqaan service passportka marka waxaan aaminsanahay waxay ku xiran tahay cidda invitationka ku soo diraysa ujeedada u tagaysay waxyaabahaas ku xiran tahay laakiin baasaboorka Somaliland waxba kaga duwanaa baasaboorada kale ee dunida xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun waxa uu maalmo kooban ku helay dalku galka dalalka Masar iyo Ingiriiska isagoo adeegsanaya baasaboorka Somaliland waxa 2012kii anuu baasaboorka Somaliland aan ku tagay dalka Masar gaar ahaan caasimadiisa 2014kii shir weyn oo ka qayb galay oo magaalada London ka dhacayay oo caalami ah oo dad magac dunida kula oo ay isugu yimaadeen waxaan ku tagay baasaboorka Somaliland waxaana safaaradda Ingiriiska ee magaalada Addis Ababa ku taala ay siisay fiisaha iyadoo ay saartay baasaboorka Somaliland intaasoo baasaboor waa 10 baasaboor markuu buuxsamana waan hayaa kayd baan u hayaa tusaalaan u hayaa waxaan u hayaa taariikhda Somaliland ayuu gelaya wuxuu ku tusayaa baasaboorka Somaliland ay bixiso in la igu siiyay iyadoo farahaygii iyo farahalka ku yaala ay isleeyihiin waxa la igu siiyay in biometric indhahayga iyo macluumaadka ku yaala inay iskeenayaan markaan dal galo ee baasaboorkayga la sawiro anigana indhahayga la eego labadiiba isu imanaya Axmed Shimaali wariye madax bannaan waxa uu dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga oo uu shirar kaga qayb galay ku tagay baasaboorka Somaliland waa sida sheegtay waxaan ka qayb galay dhawaan 8 bisha 9kii shirka dhacay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga shirweyne lagu magacaabo Terreti Forum oo sanad kasta ka dhaca wadankaasi Turkiga anigu waxaan kamid ahaa saxafiyiintii sanadkan lagu marti qaaday baasaboorka Somaliland ayaan ku tagnay oo aan kaga dhoofnay Hargeysa Dubai ku marnay ilaa aan Istanbul iyo guud ahaan Turkiga ku tagnay runtii dad badan baan weydiinayay baasaboorka aan ku safarnay iyo sida macquulka u tahay in baasaboor Somaliland lagu safri karo runtiina markii aanu marinay si ixtiraam leh ayaa loo soo dhaweeyay fiisahana loogu saaray anigu markii hore intaan la itusin oo la isin baasaboorka waxaan moodi jiray wax la iska sheego oo waxaan xataa u aqaanay markaan ergaawo joogay hawl badan taxafiis dawladda la iska galaa si ayar la iska galaa mahada Yusuf Ismaaciil waxaan kugula dardaarmaynaa baasaboorka inaad sharaftiisa ilaaliso baasaboorka Somaliland kaliya ma fududayn socdaalka muwaadiniinta dalka iyo dibadiisa balse waxa uu door weyn ka qaatay kobaca waxbarashada Somaliland
sanad kasta baasaboorkan waxa ku taga kumanaan arday oo deeqo waxbarasho ka hela dalka dibadiisa. hadda waan warbixintan diyaarinayna waxaanu kula kulannay taliska ciidamada socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha Somaliland in ka badan 200 oo arday kuwaas oo isu diyaarinaya safar waxbarasho oo dalka dibadiisa. waxaan mar labaad halkaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo inoo suurtageliyay in qarankeenu maanta uu helo baasaboorka e-baasaboorka ah ee internationalka ah. taliye ardayda deeqda waxbarasho heshay 230 arday 230 kaasi 10 waa PhD 150 waa master 70 waa kuwa maanta inoo hor fadhiyo oo waa heerka koowaad ee digriiga ah. maanta waxaanu idinkala wareegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo baasaboorradii ardayda heerka koowaad ee digriiga ah. ardayga Somaliland markuu Hargeysa ka baxayo ama Somaliland ka baxayo gobol kasta ahaato wuxuu qaataa ku baxaa baasaboorka Somaliland. wadeeqaha waxbarashada rasmiga ah ee dawladdu gacanta ku hayso ee komishanka tacliinta sare ay ka qaadaan imtixaanaadka higher education-ka. arday walba waxa loo sameeyaa waajib ku ah inuu qaato baasaboorka Somaliland, inuu maro processka ama nidaamka looga baahan yahay qaadashada baasaboorka oo uu la mid yahay muwaadiniinta kale ee Somaliland. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqono ardaydii ugu horeeyay ee baasaboorkan cusub ku safarta kuwaas waliba si free ah u hesha. waxaana mahadsan iskale halkan fadhiya. waxaan halkan uga faa'iideysanayaa fursadan in qof kastoo baasaboorkii hore ee Somaliland noocyadii hore sitay in aanu muddo dhow shaqeyn doonin baasaboorkaasi. baasaboorka casriga in diyaar loo leeyahay immigrationku inay siiyaan ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha baasaboorka cusub oo ku wargelinayna qof kasta oo baasaboor hore u qaatay baasaboorkii hore oo aan systemku akhriyi jirin markii hore. baasaboorkan casriga ah oo system kasto adduunyada akhriyayo in baasaboorka Somaliland cusub qaataan iyo bedeshaan. haddiiba wadan uu rabo inuu noqdo wadan jira waxa shuruud u ah inuu yeesho 3 shay: baasaboor u gaara, calan u gaara iyo waliba lacag u gaara. maantana waxaynu ka hadlaynay mid kamid ah